maanta waxaan marti noogu ah studio-ga oo runtii nagu soo booqday live-kana su'aalaha aad runtii ku weydiin doontaan haddii Allah wada loo galado Sheekh Cabdiqani Qardaawi oo magaalada Minnesota aad ka taqaanaan sababta Sheekh Cabdiqani Qardaawi aan ugu soo casuunayna waxa weeye arrimaha ka soconaya Soomaaliya haddii ay iskugu jiri lahaayeen runtii dadka iyagu markaasi noqday in gacmaha la gooyo ama hadday noqon lahayd dadka lagu haysta maxaabiista ah ee haatan ajnabiga ee magaalada Muqdisho lagu qabsaday lacagaha lagu kala doonayo iyo qaarkood inay culimadu ay ku doodayaan in markaasi la dilo maxay ka qabtaa diintu arrimaha noocaas oo kale ayaan halkan ku qaada dhigi doona haddii Allah wada loo galado iyo dadkan shabaabka ee soo baxay bariyahan ee runtii Soomaaliya dhexbooda siyaasadeeda maxay se diintu ka qabtaa diintu ma diintii hore mise diin cusub ayaa soo baxday bariyahan dambe Sheekh Cabdiqani Qardaawi oo runtii magaalada aad looga yaqaan in ku soo casuunay studio-ga barnaamijkan doodan xiisaha leh fadlan haddii aad ka qayb galaysid soo wac 612746055 oo ah runtii arrimaha ku saabsan Soomaaliya fadlan soo wac numberka hoos ku qoran Sheekh Cabdiqani Qardaawi su'aalahaas ayuu maanta halkan diyaar ugu yahay in uu ka jawaabo runtii maxay diintu ka qabtaa arrimaha Soomaaliya haatan ka dhacaya ma right ba ma wrong ba yaa saxsan dadkan iswada barbaryaacaya ee qolo walbaaba markaasi qolo ay ku socoto Sheekh Cabdiqani ku soo barnaamijka جزاكم الله خير بارك الله فيك first of all Sheekh Cabdiqani inta aan su'aalaha iyo doodaha furan bal horta waxaan doonaynaa diintu maxay ka qabtaa arrimahan soconaya ee Soomaaliya hadday noqoto in dad la dilo hadday noqoto in gacan la gooyo hadday noqoto in ajnabi la afduubto maxay diintu ka qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لابد وحان لغا مارمان أهين وحيالها بدن أو مانتي حالدها كسعودة ودن كينا أينو مانتي وأبتسنو أو Soomaaliya in tooda badani inay ahayn wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay wadankeenuna dib badan baa ka soo jirtay muddo hadda lagu qiyaaso ilaa 20 sano ku dhow waa gartay مثلا hadaan u leexno dhinaca dilka ka socda oo la islaynayo qofka mu'minka ahi waxa uu leeyahay qiimo ay naftiisu leedahay waxa Allah subhanahu wa nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis ku leeyahay la sawalu dunya kullaha ahwanu ala Allah biqatl nafs mu'min أو مسلم وحولي النبي عليه الصلاة والسلام أدون كان دمانتيس إنه سورة أو ماشى كبحه أو بابه وحي كلفه ضحي قف مسلم أو ديجس لداديه أما قف مؤمن ولا دري والنبي عليه الصلاة والسلام وحول ترمامي قف كنفتيس إنه قيمة لا ضحي قف كنفتيس ومارت إن عيال ودري كرين مرة واحد بدن دي سؤال شهادة هاي أرين كاسيادة واحد بدن مانت الصومالية كصعدة واحد مودع وجا إنه أباهن تهاي إن لقى استاجه علماء غير كمان waxay ku tilmaaminayaan fitan socota fitantaasna qof walba la doonayo inuu maartay iska ilaasho nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis wuxuu leeyahay xilliga ay fitantu timaado oo dadku ay harajka iyo dhibta ku jiraan qofka waxa la doonayaa maartay inuu naftiisa kaliya ku ekaado oo naftiisa ku ekaado marka xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay waxa iimaan doona waxa loo yaqaan haraj saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay saxaabadu waxay rasuulka ilaahay haraj maxaa la yiraahdaa wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ku tilmaamay harajku inuu yahay in qaybta kale ay layso qaybta kale ay disho marka ninka saxaabiga nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay oo mushrikiin baan sanadkan laynay intaas oo mushrikiin aan dilnay xaalkaygu muxuu noqon doonaa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ma aha aringan ka hadlaya mushrikiinta leenaysan ee dadka muslimiinta aba dhexdiina islaynaysan marka saxaabigu wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ku jawaabiyay wuxuu yiri rasuulka ilaahay aqliga aan maanta leenahay miya maalintan lahan doona marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu xadiiska ku soo gabagabay leeyahay maya dadka waxa hari doona dadka u liita ayaa hari doona oo yaani wax aqliga ay ku jirin waxana badanaya waxa qatliga iyo islaynta loo yaqaan marka waxa moodaa inaynu ku jirno xilli fitantu aad u tira badan tahay Cabdiqani aad baad u mahadsantahay runtii sida aad u kala dhigtay Cabdiqani culimo way joogan Soomaaliya dibaddana way ku nool yihiin ma waxa isleedahay culimadii baa hadda aqligoodii isbedelay mise waxa ka xoog batay taayiradan wareegaya iyo lacagtan socota baa ka xoog badatay maxaad isleedahay culimadii haatan way wafta lama soo saarin oo anigu saan ogahay culimo inta kacday istaagtay oo sheegtay walaga yaabaa bariyo hore inay dhihi jireen qaar istaageen oo xamar xataa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen culimada oo dhan ay ka soo saareen go'aan iyagoo waliba deadline-koodina la dhaafay yiraahdeen xataa waa inay ka baxaan ajnabigii marka waxaad moodaa culimadii inay qaar ka gaabsadeen hadda way leeyihiin arrintii farihii way ka baxday maxay kula tahay sidaa tilmaantay culimada
muslimiin tahay khaasatan Soomaaliyeed waxa jirta inay sameeyeen dalad culimadu ay leedahay culimo badan oo ragga culimada ah maanta la oran karo iyaga ayaa marjic ah ayaa fadhiye kala duwan sameeyay gobolada Soomaaliya meel ka duwan bay ku sameeyeen waxay ka soo bilaabeen sanad ka hor malay Burcaan lagu qabtay fadhi ilaa marka dambe Xamar la yimi oo ay culimadii dhamaantii isugu yimaadeen ay sameysteen maamul sameysteen ay kala damay sameysteen arimahana ay muddo ka hadlayeen laakiin waxa moodaa culimadaasi go'aamadii ay soo qaateen ay soo saareen hadii inteeda badan la qaadan lahaa oo lagu dhaqmi lahaa waxa ma xumaadeen waxa moodaa culimadii fadhiyadii badna ay qaateen iyo go'aamadii ay soo saareen in wax yaani dhaqan gali ay jirin waxa markii u dambeysay dhacday culimadu Xamar joogto oo fadhida maartay in dagaalku aad u sii wanaaday ka bacdina ay saas uga baxeen uga qaxeen iyaga kaliya ma ay culimo muslimiinta carabta kamida oo dadka carabta loo yaqaano oo wadamada Carabeed ka yimi waa weyn ayaa soo baxay waxay yimaadeen Xamar bay yimaadeen سيب أرنتان وقتلن لهاين ضد كان وقت لهاين وشيء لهاين وضد المسلمين بالله ديق الله دادنا ضد كان لمنا وحدنا نوجو مجرته ضد كإني عداوة سيكلا قادان أو سيكلا فوقادان وإلهي سبحانه وتعالى كسي دران موية وحكلا ومارت إيمان كرا مجران هلا جوجي ديقا لكن وح ماشي كسو قادة مجران وحين أقنها مركا مصالح دو وحي كجرتا ومدى إن لا إلى يعني من مدى إن إلى شو وحي مصالح دو كجرتا ضد كمسلمين تأهي إلى متقن وتشدان إلى ديق إسكيل عليان إلى علماء ضراعان أي مسلم كجرا مركا علماء عقل لقما قادين لكن ضد كبا مودا إني قادن واي شعب كأح مودا إني قادن وايين يعني شعب كأوران لكن ضد كوحن كوضع يعني بوقيدا وضع مدقالات وضع ضد كده هرمود كاهي واحد مودا إنكم حديقين ويقادن وايين تلوين كعلماء يسوي جديين. إن أدبض ما صنتها إن عبد الغني سيد وقتها فضلا هدية دون سدوتا قيمها بدن إن أتكسوق قشور نقل سوق قبل فضلا تلفوق هاسكو قرن 612746055 أرماها كدعية سوماليا runtii haatan la isku adeegsanayo dhinaca siyaabo kala diimeed hadday noqon lahayd ama siyaasadba hadday noqon lahayd arrimahaasi maxaad ka qabtaa fadlan doodaas ka soo qayb gal 612746055 Cabdiqani Qardaaw ayaa maanta halkan noo jooga maxay ka qabtaa diintu dadkan dilkan dhacaya ee runtii ka dhacaya Soomaaliya Cabdiqani saad ogtahay dadkan international community ama caalamku waxay ku muujiyaan waxa ay diidan yihiin in ay banaanbaxyo sameeyaan oo ay ku hortagaan Soomaaliya way sameyn jireen kasoo qaad Ethiopia banaanbaxyo la dhigi jiray laga hortago laakiin hadeer ma aynu arkayno banaanbaxyo wadanka gudihiisa ka dhacaya oo sheegaya in laga hortagayo dadka gacmaha goonaya dadka laynaya ee dhalinyarada yaryar qaarkood ka kaxaynaya dibadihii iyo dhulkii Soomaaliya dib ugu celinayo ku baabanay goormaad isleedahay culimada Soomaaliyeed diyaar bay u noqonayaan banaanbaxooda muujiyaan banaanka muujiyaan aysan ashuun kaliya ku aadmin horta waxa mudaharaadka loo yaqaano oo waxa moodaa inay runtii waxyaalo badan ay diinta sal ugu lahayn mudaharaadka banaanka loo soo baxo oo saa mataqaana loo sameeyo laakiin culimadu runtii masaajida ha noqdeen mataqaana inay xamar waxadeeda yimaadaan oo ka hadlaan hadda seen la socono meel walba waxa ka socda mu'tamaraad islaami ama nadooyin islaamiya ka socda gobolada Soomaaliya hadda waxa u dameeyay oo lagu qabanayo nadoodo aad u weyneed oo culimadu ka soo qayb gashay magaalada Laascaano waxyaalo waaweyn laga hadlayay mawaadiicda waxa kamid waxa takfiirka loo yaqaano takfiirku waxa weeyaan umada oo qof la gaalaysiyo mesela hebel oo la yaqaano waa gaal la yiraahdo diinta islaamka qabtaaba lagu hadlayay waxay culimadu aad uga hadleen oo kala isqarxinta oo kale waa ka hadleen laakiin Cabdiqani inta ka gudbin Sakriya aadan xayo markuu u tagay Soomaaliya وكسو أرك تكفير ورئيسي وحى هرت ولا ما بدو وامبا لكن سي واحد من التكفير كوني قولادان هذا وحلاين يسكب سي حق جرا ما تكفير كهذا وان كهالله نعم تكفير هذا كهالله وكدوية تكفير كأديت المانتي أنا واحد وان سو أركي هرنا وأرك جرا سومالي وان جونا حمر جونا ويجوجين وأمد يعني ضد جاره أو كوح جاره لو مجاب تكفير لكن تكفير هذا كهالله علمته كهالله وحويه مثلا نبى ربنا دجال ما دجال قالوا وحليه هبل ويقص ورجة قالوا أما ضد نوع وقالوا وياه محا qofka lagu takfiirin kara qofka maxaa gaal lagu oran kara qofkan waa gaal maxaa lagu oran kara waa inuu leeyahay culimadu waxay u dajiyeen waxa loo yaqaan dawaabid takfiir qofka marka la gaalaysiinayo dawaabid baa loo dajiyay marka culimada aan ku leeyahay Laascaano bay ku qabteen mutamarka weynaa oo asbuuca socday mawduuca aad baa looga hadlay loo dhiraaniriyay cid ma cid gaalaysiin karta iyo qofka gaal lagu oran karo waan arki jirnay hadda kor waxaan malnaayay idaacadaha aan ka dhageystay xamar dadka jooga oo dagaalada wada inay idaacadaha ay ka hadlaayeen hebel ninka la yiraahdo wuu ridoobay hebel ninka la yiraahdo wuu gaaloobay bal aad looga hadlayay qof gaalaysiin kara waa kee sayf wax loo gaalaysiin kara ka hadleen waxay kaloo ka hadleen Sheekh Bashiir oo dalada culimada u sareeyay wuxuu mawduucu ka hadlay wuxuu ahaa isqarxintaan diinta islaamku isqarxintaan maxay ka qabtay qof isqarxiyay oo intaas oo qof baabi'iyay diinta islaamku maxay ka qabtay way ka hadleen marka culimadu intay mudaharaad banaan ku sameyn lahaayeen meelaha mu'tamaraadka iyo masaajidada ayay waxay dadka ugu sheegaan waxyaalaha khaladka ah iyo waxyaalaha saxda lagu sheegaa marka saas waxa ku kala
duwan yihiin mutamaraad la qabanayo iyo maaragtay mudaharaad la qabanayo insha Allah laakiin de markaa miyaan la dhihi karaynin dee dad gooniya un bay la hadlaan dadka masaajidada kaliya la hadlaan mass media kale oo badan inaysan la hadlayn wallahi horta waa la oran karaa oo badanaaba dadka masaajidda laga hadlaa laakiin hadda sayn la soconno waxyaalaha loo yaqaan media meel walba uu galay muxaadaraadka maanta ka dhacaya magaala Hiblaayo ka dhacaya internetka ku wada jiraan iyadoo waliba lagu soo qorayo qaabka loo qabtay iyo cidda ka soo qayb gashay iyo waxa looga hadlay oo qodobeysan yihiin hadda mutamarka u dambeeyay culimadu ay ka hadleen aan ku sheegayo maalin walba wixii dhaca oo laga hadlo adduunka meel walba gaarsiinayaan waxa loo isticmaalay idaacadaha kan loo yaqaano sida internetka iyo xilmidka ayaa loo isticmaalay iyagoo maqal iyo muuqaala ba anaga markay maanta dhacday isla markaa soo gaaraysa marka wax qarsoon idaacadaha ka qarsoon ma ma laga yaaba Cabdi Qarisaad ogtahay culimadu inay maanta leeyihiin waagi hore annagaaba baraarujin jirnay inay dadku dagaal galaan la jihaado la